الله naxariistay waxa dil toogasho ah lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdikariin Gaboobe kaasoo ay dilkiisu geysteen koox burcad South African ah kadib markii ay u galeen wadada isku xirto magaalada Tambisa iyo magaalada Johannesburg halkaas uu doonayay marxuumkani la dilay inuu dukaankiisa uga soo adeegto sida lagu soo waramayo inta uusan dhiman marxuumkan Cabdikariin ayaa waxa la sheegay in niman ku hubaysna bistoolado watayna gaari yar ay isku horgooyeen gaarigiisii kadibna ay rasaas ku fureen taasi oo ka haleeshay markii dambe wadnaha kadibna isla goobtii ku nafbaxay marxuumkani la dilay ayaa in ka badan 5 jeer isla wadadaasi loogu geystay dhac kan la mid ah kaasoo ay u geysanayeen tuugo iyo rag lagu sheegay inay ahaayeen booliska dalkani Koonfur Afrika iyadoona dhaawac aad u culus ay gaarsiiyeen hadda ka hor kaasoo uu mardhow ka soo bogsooday balse dhacani cusub ay u geysteen ayaa noqday kii waqtigiisii ku soo dhamaaday meedka marxuumkani ayaa la keenay masjidka Imaam Shaafici ee magaalada Johannesburg ay Soomaalidu ku leedahay halkaas oo lagu tukaday salaadii janaasada waxa intaas kadib meedkiisii loo galbiyay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Johannesburg halkaas oo shalay galinkii dambe lagu soo duugay aaska marxuumkani kadib ayaa waxa goobta wacdi diini ah ka soo jeediyay imaamka koowaad ee masjidka Imaam Shaafici Sheekh Maxamed Amiin Jawhar isagoona dadkii goobta isugu yimid ku guwaabiyay in inta ay nool yihiin amal wanaagsan ay la yimaadaan أجلها نبي عليه الصلاة والسلام إن بدن بكهلا قرآنك إن بدن مركز لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها نف إلهي دق ما يمرك يتماد وسيدا من بلغ على المغرية إخواني موت فجأدنا وحيابها خطر si kastaba ha ahaatee maahan markii ugu horeysay muwaadin Soomaaliyeed lagu dilo dalkani Koonfur Afrika iyadoo Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika lagu weeraro kuryahooda iyo goobahooda ganacsiba عبد الناصر صومني تلفزيون عالمي Faisal TV Johannesburg